shirkii markuu hogaaminayay waa tii erayada caanka ah weli la yiraahdo raaciya waa keen ku hadlay ninkii hadalkeenaba waa kii askarta laha saara dee goluhu waa golo soo daalay marka Saleebaan mar la wareystay wuxuu yiri annaguna garan weyne meesha ka taga cidna badashana weyne xukuumadii Musabbixi ee ka soo bilaabantay ganacsatadii baa saameyn weyn waxay ku yeesheen imika siyaasadii oo xukuumaddan imika joogtaa shacabkuba wuxuu u yaqaanaa in ganacsatadu kansatay halkaa wuxuu markaa marinay baa Xaaji Cabdiraab Kaca wuxuu jooji hadalka imika laga bilaabo ana tanaasulay adiguna nin fiican baa tahay walkan hadalka kaga ridi jiray go'shaala iyo cimaamad rishwaan oo hadiyadan waan ku siiyay shirkuna waa inoo xidhay golaha laftiisu Saleebaanna waa sheegay imika gudoomiye iyo meelahan in lagu wareego waxa ka fiican golaha laftiisa isbedel u baahan waayo golahan 790kii yaa doorasho ugu dambeysay siyaasigii xiliyada ugu cuslaa ee kulmiye galay isagoo aan meel kale baydhbaydhini muusuha موسى ده كل مية وصاء أساسا إنك صدق أبال كنا وكيل لو قدومينا نقضي مدحوينا نقضي هرت مراحل بدانو أدق بولا صو مري قراها سليبان ما أنتنا شرف بيوتها إنه يسوي إسكي وقدقو كل الهبون دا وضيال ما أنت وحندين ودنا برنامج تاريخا أو كسابسن قدوميها قلها قرتي السومالي لان سليمان محمود آدن أو ورك قارشيين إن gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland uu bannayn doono kursiga gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland waxaynu ka sheekayn doonaa oo igala qayb qaadan doono barnaamijkan abwaan Yuusuf Shaacir oo kamid ah abwaanada Soomaaliland nin waayo badan u soo joogay oo taariikhyahan ah bal waxaan ka warrami doonaa Saleebaan Maxamuud Aadan sidoo golaha guurtida Soomaaliland ku yimi iyo taariikhdiisa oo kooban soo dhawaada abwaan ku soo dhaw shukran waa dhawahay aad iyo aad baa mahadsantii bal haddaan nala wadaagto aniga daawadayaasha taariikhda gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo warku sheegayaan inuu kursiga jagada gudoomiyaha u bannayn doono bismillaah alxamdulillaah horta guurtidu ilaa iyo intii lagu aasaasay intii ma aan idhaahdee lagu soo doortay shirkii Boorame asaaskeedu waa ka horreeyay waxay Soomaaliland u ahayd laf dhabar xaqiiqatan door weyn bay ka soo qaateen dhismaha iyo asaaska dawladnimo anu markaan wax qiimeynaya waxaan idhaahdaa saddex shay baa Soomaaliland dhismaheeda door weyn ka qaatay golaha guurtida oo barigaa waxaa joogay raggii aad garanaysa Sheekh Ibrahim Lahaaye Xaaji Cabdiraab Lahaaye Sheekh Muuse Goodaad Lahaaye Sheekh Cabdullaahi Lahaaye rag badan baa joogay qodobka labaadna waxaan idhaahdaa hogaamintii siyaasiga ahayd iyo way aragnimadii madaxweynihii geeriyooday Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ayaa u naxariistay qodobka saddexaadna waxaan idhaahdaa oo aad u muhiim ah oo dadku aad u dareemin faragelin la'aanta dabadeed ee aan dabadda kaga imanin saddexdaa qodob oo iskaashaday ayaa dhismaha Soomaaliland door weyn ka soo qaatay marka guurtidu xagga nabadaynta iyo xagga siyaasiga ah labada qodobba aad bay tacab badan u soo galiyeen waayahan dambe laba qodob baa lagu dhaliilaa guurtida mid waxa weeye in raggii odayaasha ahaa ama haldoorkii meeshii ka baxay oo dhalinyaro ay ka tageen ay soo buuxiyeen golihii oo golihii golo iska dhaxala uu noqday qodobka waa lagu dhaliilaa qodobka kale lagu dhaliilaa waxa weeye muddo kordhintan faraha badan ee ay xukuumadaha u sameeyaan oo iyana iska caado iyo joogto noqotay labada qodob sumcaddii golaha waxbay u dhimeen laakiin waa golo taariikhi ah oo door weyn ku leh dalka inta haddaan ka imaado Saleebaan Maxamuud Aadan oo imaka wararku badan yihiin birito inuu banaynayo oo axada bishan Julayna ay 12 tahay san filayo oo waabay sii daayeen baaqi xogayaha golaha guurtida ba sii daayay in shir biri la isugu yimaado Saleebaan taariikhdiisa soo kooban iyo sidoo ku yimi guurtida ayaynu sir dul taagaynaa Saleebaan taariikh dheer buu leeyahay oo ilaa dhowr iyo 60kii ayuu systemka ku soo jiray
laakiin haddaynu ka soo qaadano intii 1991kii markii Somaliland ku dhawaaqday inay ka noqotay midnimadii Saleebaan dawladda xilligaas Cabdiraxmaan waxay ka dhigtay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mar labaadna waxay ka dhigtay wasiirka arrimaha gudaha dawladdaasi 2 sanadood oo ku meel gaadhay bay ahayd qalalaas iyo khilaaf iyo dagaala ragaadiyay isaga iska casilay markii dambe dawladda wuxuu haddana ka mid noqday dawladdii cigaal ee boorame lagu soo dhisay wasiirka sportiga iyo waxbarashada iyo ciyaaruhu ka dhigay taa kuma raagin markii dambe wuxuu ka dhigay wasiirka maaliyadda cigaal dawladdii cigaal muddo la shaqaynayay markii waqtigeedii soo dhawaaday dagaalada waxba qarxay muddo kordhin baa loo yar sameeyay tii koobaada muddo kordhintii ugu horeysay la sameeyay dawladda saa loo sameeyay markii dambe ee doorashadii shirbeeleedkii ka dhacay Hargeysa 1996 aakhirkiisii ilaa horaantii 97kii ayaa shirbeeleed lagu qabtay Hargeysa musharax buu markaa noqday isaga iyo Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal iyo Maxamed Xaashi Cilmi yaa ku tartamay muu guuleysan laakiin cod badan buu helay 90 cod buu helay cigaal wuxuu helay 203 Maxamed Xaashina wuxuu helay 2 cod xalmaniya 315 xubnood baa codeynayay intaa wixii ka dambeysay cigaal waa kala boodeen iyo Saleebaan intii hore waa wada socdeen aad bay u kala fogaadeen arrintuna waxay sii adkaatay markii cigaal uu ku dhawaaqay in asxaab la furayo ururkiisii ugu horeeyay udubna uu ku dhawaaqay July baan filayaa inay ahayd 2001 Saleebaan iyo madax dhaqameed iyo niman kale oo siyaasiyiin oo SNMT u badnaa wada socday arrinta gaashaankay ku dhufteen waxay dhaheen shirbeeleed bayna ku dhawaaqeen waa tan imika ka taagan Muqdisho taandhadii lagu noqday iyo la codeeyo burca dabeetana salaadiin la isugu geeyay salaadiinta go'aan bay soo saareen cigaal inuu ka noqdo xisbigiisii udub oo markaa ku dhawaaqay shirbeeleedna la qabto cigaal la gaashaanku ku dhufto dabeetana salaadiintii buu u yeedhay halkan ay yimaadeen mucaaradkii waa tii la isku qabsaday soo dhaweyntii salaadiintaba haleeya xukuumaddii oo dhinac ka socotay mucaaradkii baaba dagaal baabuurtii baa la jirsiin gaadhay qolo waliba doonaysan iyagu soo dhaweeyaan meel geystaan waa tii mucaaradkii ku xoog roonaaday gurigii Barre waa tii la geeyay isna waa kii ciidanka soo kiciyay cigaal waa tii dagaalkaba qarka u gaadhay inuu qarxo marka arrintu way adkaatay Suldaan Cabdilqaadir ilaahay u naxariistay ayaan xasuustaa baaq sii daayo yiri beerteeda lagu qabanaya shirbeeleedka bacda inoo tabaadeen u eegayna arrintu inay dagaal kala qarxo ayay ku sigatay iyada halka taagan baa ilaahay oofsaday oo xaqi u yimi madaxweyne cigaal waa ka dhintay markaas arrintii degtay oo waxa yimid madaxweyne ku xigeenkii Daahir Riyaale ayaa noqday madaxweyne dabeetana arrintii kacsanayd way degtay Riyaalna wuxuu sii dhaqaajiyay arrintii asxaabta in xisbiyadii la furo Saleebaan markaa wuxuu furtay urur la yiraahdo Asad buu furtay dabeedna 2002 ayaa 6 urur galeen doorashadii golaha deegaanka waana doorashada ta xisbiga loogu gudbayay ee ururadu kala hadhayeen Saleebaan ururkiisu waa dhacay Saleebaan Maxamed Aadan ururkiisi Asad waa dhacay saddex urur oo kala soo baxay oo saddex xisbi u gudbay kulmiye iyo udub iyo ucid saddexaas soo baxay Saleebaan markii ururkiisi dhacay nimankii way tashadeen waxa u badnaayo ku xooganaa saraakiishii SNMta yaa ku xooganay laba ay kala jabeen marka ururkii Asad Saleebaan iyo culu wata waxay u galeen Daahir Riyaale iyo udub
dowladdii baa wax laga siiyo dhowr wasiir ayuu heleen Saleebaan laakiin kama mid noqon rag badan oo saraakiishii SNM-hina waxay tageen kulmiyo oo markaa dee Siilaanyo uu joogay Cabdiraxmaan Cali iyo Maxamed Kaahin iyo Dhagaw Weyne iyo tiim saraakiishii waaweynada SNM-hi iyagoo xaggan ay ka ururiyeen dee SNM-ti iyo Siilaanyo waxa xusid mudan ninkii ugu horeeyay ee xilliga kulmiye ee siyaasi weyn ah soo gala Musabixi buu waan xusuustaa siyaasigii xilliyada ugu cuslaa ee kulmiye galay isagoo aan meel kale baydhbaydhini Muuse Muuse de kulmiye waa soo aasaasay inkastoo de abaalkiina uu ka helo gudoomiyana noqday madaxweynena noqday intaasi markay dhacday Saleebaan raggiisii meeleeyay ee riyaale tusaalahan faadaan cadiyaba kamid aha raggii Saleebaan la socday ee riyaale ee wasiirka noqday nin dhintay Cismaan Qaasim qodax loo oran jiray dhowr wasiir ayaa xukuumadii oo riyaale ay siisay marka haddana waxa soo dhow doorashadii madaxweynaha oo 2003 Saleebaan tiina waa yimi dagaal kulul ayuu galay oo uu ka safan yahay dhinacii udubta oo ka horjeedo kulmiye iyo Siilaanyo waxa aad loogu xasuustaa sanduuqyadii Balle Calanle markii dambe halkan uu yimina dagaal buu ka sii galay Hargeysa markuu yimina doorka ugu weyn ayuu ka qaatay inuu soo baxo daahir yaale kaay Siilaanyana uu xisbigiisa isaga ay dhacaan waa doorashadii 8 ka cod la oran jiray waa lagu kala helay markaana xukuumadii kamuu mid noqon markii labaad uu daahir yaale soo baxay kamuu mid noqon 2003 ayuu daahir yaale soo baxay markaa dambana wuxuu iska qabtay dabadda oo London buu tagay isagoo haddaba London jooga ayaa daahir yaale madaxweynihii wafdi ballaaran ka haysta waa 2004 waxa ku jira Sheekh Ibraahim oo gudoomiyaha guurtida ahaa Xaaji Cabdiwaraab baa ku jira rag badan baa ku jira wafdigii baa London tagay Sheekh Ibraahim baa xanuunsaday gudoomiyaha guurtida dhakhtar buu galay kama bakicin sidii buu ku geeriyooday malaa ilaa 2 bilood meelahaas uu dhakhtarkii ku jiray waaba ku geeriyooday Saleebaan markaa London buu joogaa sidoo ku sheegay buuggiisa buug leeyahay sooyaalka taariikhda oo nin leeyahay ubax la ka qoray wuxuu dad badan bay la soo xidhiidhay oo yiri jagadan banaanaatay buuxi waa ka cudur daartay buu war xilli kale guuro asxaab la furay inuu joognaa iga daay telefoonkii baa batay buu oo markaa nin buu aad u amaanay la soo hadlo yiri waxaan ku yiri buu warnu guurtidana de xubin kamay golaha kuma jiro asxaabna waa la furay markaa maanta halkaa de waa adag tahay dabatan wuxuu nin baa la soo hadlo yiri haddana anigu ku jiro adna waad ku jirtaa waxaan filayaa waa ninka marka dambana u banayn doona markaa waxa xildhibaano guurtida ku jira xildhibaano guurtida kaalay waa lagu sugayaa dabeedna wuxuu yiri waxaan isiri haddaba bar madaxweynihii isaguna fakarkiisa adeegtida la hadal daahir yaana la soo hadlay buu niyad sabibu ii muujiyay buu inuu raali ka yahay ayuu ii muujiyay dabeetana aaskii maydkii baa soo raacay maydkii ayuu soo raacayba halkan uu yimi laakiin markaa rag kale ayaa iyaguna hunguraynaya meesha oo doonay inay gudoomiyaha guurtida noqdaan Xaaji Cabdi baa ku jira waxa ku jira nin isna dhintay oo loo jiray Maxamed Axmed odayaashii waaweynaa markaa guurtida laakiin guurtidu golayaasha kale waxay kaga duwan tahay maadaama ay odayaal yihiin si saqar yar bay u socdaanoo xamaasadan doorashooyinka iyagu inta badan male iyo tartanka iyo Soomaaliya iyo waxa dabeetana markii uu yimi madax dhaqameedkii deegaankiisa yaa iyaguna abaabul galay Saleebaan si meesha loo geeyo xaggana xukuumadii iyo daahir yaale ayaa isaguna ka wada oo ama abaal hore ha u celinayo ama hay siraahdaa war Saleebaan hawshiisa halka iska gee isagu xukuumadina adigu waa wada
xaaji cabdi waraabe ilaahay u naxariistee iyo deegaankiisii ayaa arrintii ogaaday halkan sheeko qosolaa ku jirta aad u weyn qosol leh dabeetana way shireeno waxay idhahdeen war maxaynu yeellaayo waxaynu yeellaa saleebaan iyo odayaashiisa aan casunno oo dee bal aan hawshay dabacsan inay ogaano haa way anahano noo tanaasula oo noo daaya guddoomiyaha guurta waay waa la casubay waay saleebaan iyo odayaashiisii waay saleebaan uu ku jiraa markaa waa ku jiraa waay hudheelayada star waay yaa lagu casubay cali madoob baa iga warramayo oo ilaahay u naxariistay ninka sheekada u weyn dhigaya wuxuu ihi markii aanu fadhiisanay casumaadii dhammaatay yaa xasan kuura kaca ilaahay u naxariistee wuxuu ihi niman yahow dee maanta waxaanu idii casunnay jagadaa bannaanaatay ee guddoomiyaha guurtida waxaa hungureeyey dee odaygii golahana u weynaa dee dadkaba malaha badankiisa u weynaa xaaji cabdi oo dee aa wada garanaysaan hawshii annagoo ku jiraanu maqalay idinkana warkiina ina saleebaan wadaan marka waxaanu isnidhi war dee tolku ways odhan jiree oo aanu maanta idinku marti qaadnay inaad noo tanaasushaan oo dee ninkaa odayga ah aa arkaysaane xaaji cabdina dee waa fadhiya waay inaan xaaji cabdina uu fadhiyaa laftiisa waa fadhiyaa waay inaad noo tanaasushaan waay oo dee arrintaa maanta anagu dhistaan wuxuu yidhi cali madoobe wuxuu igu yidhi ilaahay u naxariistee nin hadlaan iska weyni dhaqanka soomaalida haddii cidi ku marti qaado waxay doonayaan inaad tahda diiday waa adagta adoo gogashoodii dee fadhiya waxa haddaana doonaynin martiqaadka marka hore laga cudur daartaa la diidaa laakiin haddaad meeshii timaado oo lagu marti qaado oo inaad haddana tiraahdo maya idinkoo qabiilo dhana wixiina yeeli kara mayna bu wuxuu ihi markii dhinacayagii hadalkii laga waayey laga waayey yaan anigu idhi buu idhi haddaan cali madoobe ahay war maantoo kale isyeelyaal baa lagaga baxaaye aniga ii daaye laguu daa baa lii calow haa wuxuu masaan kaca maasaa yidhi hawshan intii aanu ku jiray horta dad badan baa na casumay laakiin weli qola tidhaahdaa casuumaadda iyo codkaba waa isukii raacinaynaa idinka hortiin maanaan arag waana idinka filaynayoo sandaladii soo jireenka ahayd iyo dhaqankii yaa tihiin arrin nagu cusub maaha waay xaggii kale u rogayba aad iyo aadna waa ugu mahadsantihi waay inaad labadaba isu kaa raaciseen anoo ka wakiilaa deegaankayaga waay waayo arrintaa idinku maanta dhigteen waay cid hore aanu uga aragna ma jirto casumado badan baanu la kulanna laakiin weli waxay yidhaahdaa codkuna waa diyaar waay casuumadiina waa tan casuumaddina waa tan waay maana arag waa la yaabay dhinacii kale dabeetana waxaan maqlay buu yidhi markaan fadhiistay waay mid meel hoose kale waay war odaygu malaa waa yaro dhaga culus iyo hadalkaanu wada maqlay waay wuxuu masaan ku soo noqday waay masaan ma dhaga cusli waay arrinka halka la dhigay odayaashu dhigeen ayaanu dhignay ayaan u bogay waay hadalka waan wada maqlayay waay laakiin odayaashu meel say wanaagsan arrinta u dhigeen waay wax hore noo soo maray maaha bismillaahi raxmaan waay nimankii bay jiq u noqotay waay war hadal kale ma idii hadho xisaan barin cid kale ka daba hadasho maya waa naga dhanyay baa layidhi waay wala dareero waxay yidhaha bal maanta halkaa waay ha inoo joogto waa la iska kale tegey waay qoladii baa dib u shirtay waay waar arrintii laynagu jiq siiye maxaynu yeellaa waay aan ku celina baa layidhi casuumad labaad haa waay waa ku celiyey wuxuu maalintii dambana waanu tagnay oy soo fadhiisteen waanu soo fadhiisannay waay intii iyo intii baanu nahay waay xaaji cabdi waa fadhiyaa waay saleebaanna waa fadhiyaa waay maalintii hore wixii dhacayna waa loogi waa la ogyahay waay wuxuu yihi xasan waxaan u malaynaya yuri xasan guuri baa haddana kacay waay dabeetana wuxuu yihi maalintii hore ee aynu isu nimi faham daraa dhacday waay annagu niman cod idi siinaya waay ma nihin waay annagaa cod idinka doonay idinka doonayna waay iminka caadi u dhegeysta haa waay waynu isyara fahmi weyn waay waxaanu iminka markan labaad idiin marti qaadnay war arrintii maalintii hore xagga fahamka wax ka xumaadeenay u bayaamiya reerka
marka waxaanu doonaynaa xaajigana waa halkaa fadhiya dee arrintii inaa dhistaan oo arrintaa odaga wuxuu noo arkay buu yidhi cali madoobe wuxuu gu yidhi waxaan arkay saleebaanoo saa eegaya oo la talo maantana buu kaco wuxuu masaan kaca masaan buu yidhi belo odaygii dhagaala wallahi waa kaa kacay wuxuu yidhi masaas haddaba halkii hore ka bedelo waxaan yidhi buu yidhi maalintaa dambe horta annagu xaggaa dee burcaanu ka nimi xaggaa bariga markaanu joogno xaajiga magacyadana ugu yeedhaan annagu uma naqaan annagu haddaanu bari nahay xaajiga waxaan u naqaanaa sheekh isxaaq gebigiisaba haa waay sheekh isxaaq niman la tartamayana manihin dee annagu ma nihin waay shiikha laftiisu inuu ciyaalkiisii kusoo hoos noqdo oo la tartamo oo dib ula tartamo waay halkaa wuxuu markaa marinaya baa xaaji cabdiwaraaba kaca waay wuxuu jooji hadalka iminka laga bilaabo anaa tanaasulay hawshuna saasay adiguna nin fiican baa taha waa halkan hadalka kaga ridi jiray waay go' shaala iyo cimaamad rishwaan oo hadiyadana waan ku siiyey waay shirkuna waa inoo xidhay allahu akbar taariikh sidii baa dadna ku dhamaatay hawshaas hawsha sidii bay ku dhammaatay waay saleebaano tolo muxuu sameeyey waa kidii keegii horta saleebaan waay cidi lama tartamina sidii ayuu guddoomiyihii guurtida ku noqday waxaan u malaynayaa bil sidaan ku arkay buugga sheekh ibraahim ayaa u dhaxaysay 22kii July 2004 ayaa sheekh ibraahim la aasay isaguna wuxuu qabanayaa August 24keedii bil iyo ayaamo ayaa u dhaxaysay muddo 22 sanadooda imikana July baynu ku jirnaa ayuu soo hogaaminayay golaha Saleeba marka ninkii baa uga baxay u yeedhay markii hore meesha ninkii baa uga baxay oo deegaankiisa ku matalayay marka horeba deegaanka Saleebaan ku matalayay oo xubintaasay ku lahaayeen golaha Saleebaan deegaankiisu marka ninkii baa u baneeyay saasuu ku soo galay saasaa markaa guddoomiye lagaga dhigay muddadaa dheer uu soo hogaaminayay marxalado badan oo adag baa soo maray runtii si adag oo go'aannimo adag ah oo ku dhaclena wuu u soo hogaamiyey laba dhacdaan soo qaadaya oo intii Saleebaan golaha hogaaminayay dhacay mid waa shirkaddan DB Wole berbera waa tii maalintii la ansixinayay labada gole la isugu yeedhay labada gole markay isu yimaadaan Saleebaan baa ayaa chairman noqonaya haa buuq badan baa arrinta ka taagnaa siyaasiyiin badan baa ka horjeeday xataa xisbigan imika wadani ee dawladda haysta uu ka horjeeday DB Wole dhinac deegaan baa ka horjeeday buuq badan baa adigu markaa jiray shirkii markuu hogaaminayay waa tii erayada caanka ah weli la yidhaahdo raaciya waa kii waay waa kii ku hadlay ninkii hadalkeenaba waa kii askarta lahaa saara sidii baa arrintii ay ku dhaqan gashay sidii beriga looga horjeeday iyo sida shirkadda markii dambe noqotayna ismaba laho oo shirkad loo aayay bay noqotay markii dambe oo sidii laga filayay si ka wacan ayay noqotay mid taasay ahayd dhacdo kalena way soo martay oo golahan wakiiladu markii la doortay oo cusbaa ee ay saadeen shir guddoonka doorta khilaaf baa yimi muran golaha wakiilada xeerkoodu wuxuu dhigayaa shir guddoonka markay dooranayaan waxaa guddoominaya intaa shir guddoonka hawshiisu socoto ninka ugu da'da weyn la golaha ninkii baa musharax noqday ugu da'da weynaa golaha faratoon guddoomiyahan iminka iyuu ahaa cabdirasaaq khaliif oo la tartamaya yaa ka soo horjeestay oo yidhi dee aniga musharaxii aanu tartamaynay dee ii guddoomin maayo golihii waa arrin adagoo aan laga yaabo inaan xeerro ka olba inay isku beegmayaan ninka ugu da'da weyn oo musharaxii waay iyo ninkii tagalaay musharaxa haa xeerro kama oolin waay arrinta way cakiranta dhinacii faratoon iyo tiimkiisi waxay leeyihiin dee annaga xeerkaana siinaya ninka ugu da'da weyn lihi inuu guddoomiyo ninkan iyo tiimkiisii khaliifna waxay leeyihiin dee waanu tartamaynaa ninkan arrinta waa adkaata Saleebaan markaa ra'yi buu keenay uu leeyahay labadiinuba jooga oo guddoomiyaha maxkamadda sare aanu dhiibno haa waa lagu wada qanaa sidii bay arrintii dee waa hadda waa intan doorashadu dhacaysa inba waqti kaleba maahaba
inta la sheergaraya waa intan ay doorasho dhacayso arrinta sidii ayay ku dhamaatay horta maraaxil badan oo adag buu la soo maray golaha Saleebaan maantana sharaf bay u tahay inuu isagu iskii uga dego laba buug oo midna isagu qoray midna laga qoray mid uu qoray 64 oo saxaafadda kaga hadlayo waxa ugu qoran inuu dhashay 1936 mid kale oo nin kale oo ubaxla la yiraahdo ka qoray oo sooyaalka taariikhda la yiraahdana 32 baa u qoran 32 hadduu dhashay waa 49 geed adayg buu wax ku wadaayay waa da waa nin da waxa kale oo iyana isdul taagid mudan oo xusid mudan shirgudoonka golaha guurtidu 3 jeer horu banaanaaday midba si gaar ah loo buuxiyay looma buuxin tusaale ahaan Sheekh Ibraahim markuu dhintay ilaahay u naxariistay waa markii koobaad uu banaanaaday golo gudoomiyuhu sida loo buuxiyay Saleebaan baa buuxiyay oo golaha aan ka mid ahayn isla markaana aan la hayb ahayn Sheekh Ibraahim de haybta guuda beesha dhexe mooyaane xagga habraha isku hayb maaha beeshii Sheekh Ibraahim way joogtayo may oran kursiga anaga beel ahaan deele waliba maxamed axmed kan aan ku leeyahay uu musharax buu ahaa waa kamid beesha kumay dhigino may oran kursiga anaga leh may oran taasi waa gudoomiyihii koobaad waxa banaanaatay gudoomiye ku xigeenkii Sheekh Axmed Sheekh Nuux Furre yaa isna geeriyooday oo gudoomiye ku xigeenkii koobaada laa yaa naxariistay yaa isna geeriyooday waxa loo buuxiyay gudoomiye ku xigeenkiisii labaad Siciid Jaamac Cali oo aan la deegaan ahayn oo la xaafad ahayn oo la shaqo ayaa la yiri maadaama ku xigeen ahayd adigu hore u ruqaanso waan dhinac kale soo maartay sida labadan waa kala jaad Soomaa sida loo kala buuxiyay Siciidkii baasna dhintay ilaahay u naxariistay halkii la oran lahaa ku xigeenkiisa baa isna jooga oo Sheekh Ibraahim ay walaalayiin Sheekh Ibraahim kii gudoomiyaha walaalkii ayaa gudoomiye ku xigeenka saddexaad ahaa markaas sidii Siciid u buuxiyay Sheekh Nuux Furre ee hore u ruqaansaday waxay ahayd inuu isna buuxiyo deein hore u ruqaansado tii lama sameeyne Siciidnima isku deegaayeen baa soo buuxiyay oo golaha kamid ah oo wax laga soo dul talaabsaday ninka Sheekh Ibraahim ay walaalaha inaan Sheekh Yuusuf Sheekh Madar yaa laga soo dul talaabsaday adigu dasi wax loo eegay waa iyana waa farq saddexaad Soomaa saddexaba kala duwan waa marka maanta haddii jagadii banaanaatay anigu waxaan ra'yigayga ku soo koobi lahaa ama aan ku talin lahaa laba qodob inaanay dhicin qof dusha lagaga keeno golaha oo aan golaha ka mid ahayn ama qof uga baxo ama inta badan qof uga baxaya inta badan qof uga baxaya golaha ilhaanay ku tahay qof dusha laga keeno oo golihiiba xildhibaanadu kala aqoon ka mid ahayn waxa kale oo iyana aan ila qomanayn faragelin dabadeed inay ku timaado ama xukuumadda ka timaado ama ganacsatada ka timaado ama cid kale ka timaado in faragelin dabadeed ay soo gasho dabeetana qof cidi wadato meeshii la keeno qofka la keenaya qof golahu keensada inuu noqdo yaa fiican laakiin qof cid gaar keensatay aanu noqon xagga doorashada golaha guurtidu ka duwan yahay saa markii horeba sheegay golayaasha kale maadaama iyagu waa yeel yihiin si sanqar yar ayay doorashadoodu u dhacdaa oo aad looma xamaasad badan male marka laba xaalaba way samayn karaan inay guddiyo intay sameeyaan iyagu soo xulaan qofkii ku habboon oo isu tanaasulaan gudahooda iyo inay doorasho furan ay ka dhigaan oo ciddii tartamaysa iyo ciddii kale la kala arko labadaba way ka dhigi karaan laakiin waxa uun halisa in gacmo kale oo dabadeed
ay soo galaan labadaa qodob in qofku dabadda ka yimaado iyo in qof cidi wadato la keeno waxa kaloo iyana aan sax ahaynoo saxaafadaha iyo baraha bulshada iyo waxaan aada loo hadal hayaa reerale meesha annagaa leh dee jago reer yeelan karana maaha haddii cidi yeelanayso oo reerba la eegayana dee sheekh ibraahim reerkiisii may markuu dhintay may annagaale may odhan waxna may kaambayn garayn waxna may dabagelin marka maanta in cid kale tiraahdo annagaa meesha leh oo ay noo xidhan tahay dee caqli saxa maaha iyana ay horeba u dhacday jagadani golahay ka banaanaata guddoomiye baa baneeyey waa inuu guddoomiyaha laftiisu dee raggiisa wuu yaqaanaaye inuu door ka qaato cidda dambe golaha sii hogaaminaysa si aan tacabkiisi iyo dee tacabadii ka horreeyba u baabi'in inuu isna laftiisu xulista door ka qaato waa ku jirtaa meesha marka in wax walba indha beeleed lagu eego dhibaatada ugu weyn iminkayna haysataa ee soo kordhay iyana waxaa ka mid ah xukuumaddii muuse biixi iyay ka soo bilaabanta ganacsatadii baa saameyn weyn waxay ku yeesheen iminka siyaasaddii oo xukuumaddan iminka joogtaa shacabkuba wuxuu u yaqaanaa in ganacsatadu keensatay xukuumaddan iminka joogta xukuumad ganacsataa loo yaqaan marka hadday golayaashii kalena ganacsatadii u tallowdo dee maxay noqonaysaa meeshii meel shirkada hogaaminayaan bay markaa noqonaysaa ayay noqonaysaa marka golaha in golihiisaa in sidiisa loo daayo cidday iyagu dooranayaan iyo jagadooda say u buuxinayaan in faraha laga qaado ayaa muhiima haddii kale arrimuhu way baydhayaan reernimo iyo waxbay dhexgelaysaa way xumaanaysaa si gaara wax u doonaysaa si gaara waxba u heli mayso si gaara waxba u heli mayso reer gaarina ma leh cid gaarahoo la keenaana hawlihii qaranka ma fulin karayso oo dee ciddii keensatay unbaa maamulaysa dee ciddii keensatay ayuunbaa maamulaysa marka meelahaasina waa meelaha aan golaha uga digi lahaa golaha laftiisu saleebaanna waa sheegaye iminka guddoomiye iyo meelahan in lagu wareego waxaa ka fiican golaha laftiisa isbeddel u baahan waayo golahan 790 yaa doorasho ugu dambeysay 29 sannadood ayay joogaan weliba 790 laftiisii xubno badan oo saas isma bedelin golahu wuxuu xilligaana u badnaa kuwii 93 iyo boorami ayuu u badnaa reer baa 790 nin soo bedelay marka badankoodu waxa laga yaabaa marka yararkan dhaxalka iyo ku soo galay mooyaane dee golahu waa golo soo daalay marka Salebaan mar la wareystay wuxuu yiri annaguna garan weyne meesha ka taga cidna badashana weyne marka golahaaba isbedel u baahane arrintu arrin guddoomiye waaba ka weyn tahay oo waa ka culusta golaha u baahan in dib doorasho loo geliyo xukuumadda walibana sibay uga yar baqaysaayo malaada muddo korinta waxaas ay haysanaysaayoo way ka soo yareen tii siilan yaa la islaa waxbay qabanaysaayo ma jirto nin waliba uu soo yareen marka meelahaasaan ku talin lahaa aad iyo aad buu mahadsan yahay abwaan yuusuf shaacir oo ka sheekeeyey taariikhda guddoomiyaha golaha guurtida somalilan salebaan maxamuud aadan waxaan rajaynayaa in dad badan oo taariikhdani ka maqnayd ay ka faa'iidaysan doonaan waraysiga waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed daahir shaahi t v baa kala socoteen waxaan kaga tegaynaa asalaamu ullahi calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu abwaan aad baad mahadsantay aad iyo aad idinkaa mudan